أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا محمد عبد الرشيد موسى حسن جيدني 10 كيمستريغا قيبتي سيتو دبي تغنات waxaan ka soo jeedinayaa iqra education program casharadayadii taxanaha ahaa ee ka bixi jiray channelkeena YouTube-ka iyo channelkayga Facebook-ka labadaba iqra education program maanta casharkayga wuxuu noqonayaa ionic bond. So ionic bond waa maxay tahay definition-keeda iyo wax la yiraahdo property-ga sifooyinka ay leedahay. So here horta ionic bondigu formation weeye. Formationkaasi wuxuu ka samaysmaa wax la yiraahdo labo molecule oo midi ama laba atom oo midi uu yahay metal midna uu yahay non metal. Mid waa metal, mid waa non metal. Mid waa cation, midna waa anionic. mid wuxuu wataa positive charge, midna wuxuu wataa negative charge. Mid wuxuu bixinayaa waxa la yiraahdo ions si kan kale uu complete u noqdo, midna wuxuu qaadanayaa ions si waxa la yiraahdo asna uu complete u noqdo waxa la yiraahdo valence shellkiis. So here waxa la yiraahdo most ionic compound have cation derived from the metallic. So cation ka imanaya metalliska birta iyo anion ka imanaya non metalliska ayuu ka samaysmaa, ayuu ka formationkiisu waa sidaas. So the ammoniumka asagu waa ka qorshe gaara sababtoo asagu wuxuu ka samaysan yahay labo waxa la yiraahdo oo elementi oo labadaba ay yihiin waxa la yiraahdo non metallic. So it's exception with us. So it forms the cation of number of anionic compounds. So here ionic bonding muxuu yahay? Ionic bonding waxa weeye it contains a metal and non-metal. wuxuu ka kooban yahay hore ku sheegay metal bir iyo waxaan bir ahayn ayuu isugu jiraa. Okay, so the metal loses electron. Metalka ayaa waxay luminaysaa electron. So waxay qaadanaysaa, waxay noqonaysaa donor waxa la yiraahdo kan kalena wuxuu noqonayaa recipient. So waxa la yiraahdo metalka ayaa wuxuu luminayaa waxa la yiraahdo electronkaasna waxa qaadanaya wax la yiraahdo non metalka. So wuxuu noqonayaa positively charged cation ayuu noqonayaa. So whereas a non metal accepts those electrons to become a negatively charged electronska uu lose gareeyay metalka ayuu non metal ku qaadanaya, and then muxuu noqonayaa negatively charged ayuu qaadanaya. Okay, so here how the metal forms positive ions and hydrogen. Non-metal kana forms negative ion ayuu noqonayaa. You see here sodiumku waxa la yiraahdo shellkeeda koowaad waa 2, shellka labaad waa 8, shellka saddexaadna waa 1. So waxay ka kooban tahay 12 element. So si ay hal electron this ion ayay bixinaysaa. So marka maxay noqonaysaa 2 iyo 8. So valence shellkeedii uu buuxaa, wax reaction ma samayn karto. So it's like that. For example, sodium chloride, sodium positive charge, chloride negative charge. Similarly, sidaas ayuu noqonayaa. Okay, like sodium chloride-ki saltiskii aan casharkii ugu dambeeyay soo qaadanay ayaa si fiican u xasuusan kartaa. So similar property ayuu leeyahay. Waxa la yiraahdo properties-ka ionic compounds-ka ay leeyihiin waxa weeye conduct electricity when molten or in solution aqueous. So haddii la milo waxay qaadanayaan waxa la yiraahdo electric conductivity. Waxay soo qabsan karaan electric ay soo qabsan karaan. Sodium chloride-ka waxaan hore u sheegnay electrolytes waxa loo yiri markii molten lagu sameeyo ayaa waxa dhacaya separation of ions and cations. Okay, high melting point ayay leedahay and boiling point. Boiling point-geeda iyo melting point-geeda waa high. Hard solids mostly waxa weeyaan waa solid aad u adag, and then waxay mostly form is crystalline structure. Inta badan crystal form ayay u samaysantaa qurbiyo sida qurbiyo camal, ama waxay u samaysantaa wax la yiraahdo like cusbada oo kala qaabkay formationka u samayso kala sodium chloride kala ayay crystal form noqotaa. Okay, forces between the ions are very strong. wax la yiraahdo ioniska wax la yiraahdo cationika iyo anionic forceska u dhaxeeya aad ayuu u yahay strong.
and also non-directional bonds bay leeyihiin. The strength of the bond equals in all direction. So each labada direction ba wax la yiraahdo bondskoodu waa wax la yiraahdo strong, aad ayay wax la yiraahdo strong yihiin oo weak bonds ma lahan. Here also, if you can see here we have sodium. Sodium first wax la yiraahdo orbitka wuxuu ka kooban yahay 2, second orbitka wuxuu ka kooban yahay 8, labadaas way buuxaan. Orbitka saddexaad ka kooban yahay 1. Okay, chlorine hadda timaado 1 halkan waa 2, here waa 8, here waa 7. So si uu 8 u noqdo, I know this one sodium ku halka electron ay lose garayaan, so positively charged ayuu noqonayaa. Here waa atom, here no atom, laakiin here wuxuu noqon doonaa ion. Markii uu lose gareeyay wuxuu noqon doonaa cation oo positively charged ah. Kana markuu gaining sameeyay 288 noqday oo valence shellskiisa ay buuxsameen, wuxuu asaguna noqday chloride ion. So ionic bond in sodium chloride. casharkayaga ionic bondiga waa intaas. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.